wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta Soomaaliland Axmed Cabdi Xabsade oo ay weheliyaan wafdiga xukuumadda ee ku sugan magaalada Laascaanood ayaa sheegay in ciidii aan diiwaan gashanayn ee barakacayaasha dadka reer koonfureedka ah ee ku dhaqan magaalada Laascaanood laga saari doono. arrintan ayaa timid kadib kulan ballaaran oo ay saaka wada yeesheen wafdiga wasiirada xildhibaanada iyo la taliyaha madaxweynaha iyo qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ah ee ku nool magaalada Laascaanood. kulankan ayaa lagaga hadlayay sidii dadka barakacayaasha ay uga qayb qaadan lahaayeen adkeynta arrimaha nabadgelyada, iyadoo halkaasina hadal dheer uu ka soo jeediyay wasiirka warfaafinta oo ku nuxnuxsaday in ciidii aan diiwaan gashanayn ee dadka barakacayaasha ah laga saari doono magaalada Laascaanood isla markaana laga musaafirin doono. isagoo ka hadlayna waxa hadaladiisii ka mid ahaa waxa la sheegayaa dad waaweyn oo idinkeeda ka mid ahoo inay isdiiwaan geliyaan ka xishooday laga bilaabo maanta ninkii aan isdiiwaan gelin magaalada joogi maayo waa qabanayna xabsi baan u diraynaa xabsi ka bacdina waa la musaafirinayaa marka intaasoo dhibaato ah isla inay gaadho ma rabno u sheega oo ka dhaadhiciya oo nin walba waxa tiraahdaa ka coys diiwaan geli. waxaan leeyahay si aynu u wada nabad galno magaaladiina ku xasilanaato dhibtii aynu uga baxno aynu wada shaqayn baanu ka rabnaa. halka waxaan ku haynaa waraaqda barakacayaashu ay isku diiwaan gelinayaan. waraaqda waxa aanu leenahay oo aanu u soo jeedinaynaa mas'uuliyiinteeda gobolka imka waftiga ku joogta ninka kamida beelaha halka kamid ah ee barakacayaasha ah ee aan haysanin taas isaga mas'uuliyadiisa leh. dhinacoodana dadka barakacayaasha ayaa ka hadlay dhibaatooyin badan oo ka haysata dhinaca maamulka gobolka, iyagoo sheegay inay leeyihiin guddiyo la socota xaaladaha dadka barakacayaasha ah maamulkuna uu gacan ka siiyay sidii ay u bilaabi lahaayeen diiwaan gelin, balse caqabado badan ay ka hor yimaadeen. waxayna xuseen in had iyo jeer dembiga ka dhaca magaalada dusha laga saaro iyagoo aan waxba ka ogeyn, iyadoo ay sheegeen inay u dheer tahay xadhigga lagula kaco mar kasta isla markaana guddiga ka mas'uulka ah aan waxba laga dhageysan. marka cabashada oon tirsanayna waxa ka mid ah gobolka dhibaatooyinka aan hadda ku soo kordhismeen ayaan ka tirsanaynaa mas'uuliyiinta maarta gobolka xagga amniga. markii ay dhibaato dhacdo dadka barakacayaasha oo maarta badana aad iska xirxirayo wax maxkamad aan la soo saareen. ana aad uga caawinayna inaysan noqon ninkii in la iska qabto oo la iska xirraado markaan u tagnaan la yiraahdo ninkii baaris baa ku socoto waa la haysaa kama dambeyn bil laba bilood markuu iska xirraado kadib la soo deynaa ilaa ninkii wax dambi ah lagu waayay. arrintaasna caqabad bay ugu noqotay, danqasho way bay ugu noqotay, xumaan ayaan u aragnaa. laakiin haddii aan oran karin dhibteeda ayay leedahay way waxaan aad rajo ugu qabnaa in bil anagu aan helno ammaankan aan la shaqeyno anagu dad waxaan nahay markaas soo qaxay oo barakac marka barakacan waa in loo tixgeliyaa hay'adaha marka ka jira gobolka sida gobolada qaar oo kale wax badan bay u qabtaan hay'adaha anagu wax maanta wax qabasho oo marka aanu wayna hay'adu aan ka hayno ma jirto haday noqoto dhan wax barasho haday noqoto dhan taakula haday noqoto dhan kale marka si kastaba. isku soo wada duub oo dadka barakacayaasha ee ku dhaqan magaalada Laascaanood ayaa markasta ay dhacdo xaalado nabadgelyo darro ah ay soo food saartaa dhibaatooyin ka sii baaxad weyn kuwii hore u haystay. Cabdiraxmaan Ali Ducaale, telefishinka caalamiga ah ee Hoon Cable, magaalada Laascaanood.